Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Isku soo noqod wacan oo wanaagsan mar kale saaxiibayaal. Maantay muuqaalkeenan waxa aynu ku baranaynaa sida loo sameeyo sawirada teesaraha ah inagoo ku samayn doona Photoshop. Balse ka hor inta ayna u guda galin muuqaalkeenan, fadlan ma tahay ruux jecel barashada xirfadda multimedia gaar ahaan qaybta graphic design-ka. Haddii ay jawaabtaadu tahay haa, hama ogaanin channelkani waa channelkaagii. Si aad uga mid noqotid saaxiibada ku xiran channelka Nasiir Graphics amaba team Nasiir Graphics, fadlan taabo calaamadda guduudka ah ee subscribe button-ka. Sidoo kalena gambaleelka furo si muuqaal waliba aynu soo gelino uu kugu soo dhaco. Waa hagaage markanina aynu u guda galno muuqaalkeenan. Marka ugu horeysa sawirka aan anigu isticmaalayo wuxuu ii saaran yahay desktop-kayga sida aad u jeedaan muuska aan ugu jiidayo dushiisa. Haddii sawirkan aad u baahan tahay waxa aan ku soo dhigayaa qaybta hoose ee description-ka videogan ama comment-iga ugu horeeya linkiyada WhatsApp group-keena iyo Telegram group-keena. Si aad ugu soo biirtid Telegram group-keena iyo WhatsApp group-keenana halkaasi ayaad kaga soo biiraysaa. Sawirkan xaggaasi ayaad ka heli doontaa. Waa hagaage hadda waxaan isticmaalayaa marka sawirkan Photoshop-kayga waa kana. Waxaan isla diyaarin doonaa teesarahan hadda yar hortiin idinkaga muuqda ayaynu adiga iyo anigaba isla diyaarinaynaa. Waa hagaag marka ugu horeysa waxaad sameynaysaa Photoshop-ka ayaad minimize ka dhigaysaa, hoos dhiganaysaa. Kadib sawirkii desktop-ka ku yaalay ayaad soo drag garaynaysaa oo soo jiidaysaa. Kadib Photoshop-kaaga ayaad ku dildeynaysaa oo qaybta kore ayaad tagaysaa. Calaamadda kore ee plus copy markay ay kuu soo baxdana waad ku deynaysaa. Waa hagaag amaba haddii uu marka ugu horeeya adiga uusan waxba meeshan ku saarnayn, waxaad samayn kartaa waad soo jiidaysaa oo kaliya Photoshop-kaagi ayaad ku dhex deynaysaa. So marka sawirka markuu sidan yahay qaybtan waxaad imaanaysaa qaybtan waxaad ugu imaanaysaa layerska. Layerkan sawirka ayaad waxaad samaynaysaa qufulka ayaad ka furaysaa oo qufulkan ayaad ku dul dhifanaysaa hal mar kali ku sii. Kadib qufulkii waa uu kaaga furmay. Sawirkaaga waxaad aragtaa inaad meesha doontid u jiidi karaysid. So marka dhexda ayaan ku deynaynaa. Qaybta dambe ee sawirkan ayaan waxaan ka dhigaynaa white. Si aynu white uga dhigno waxaan isticmaali doonaa polygon lesson tool ayaan isticmaalaynaa. Polygon lesson tool-kii markaad soo qaadatid oo sidan kugu dalban yahay waxaad sameynaysaa control-ka iyo waxaad qabanaysaa plus si aad sawirka u soo zoom garaysatid aad u soo dhaweysatid. Sawirka markuu halka ku marayo waxaad qabanaysaa keyboard-kaaga space bar-ka ayaad adigoo haya kadibna mouse sidan u jiidaysaa. Taasoo kuu suuragelinaysa in sawirkaaga aad dhinaca aad doontid ama meesha adiga marka aad doontid inaad hawsha ka bilowdid aad u soo weecatid. So marka sawirka ayaad sidaa u jiidaysaa. Ama haddii aadan space bar-ka garanaynin waxaad sameynaysaa tool-kan handiga ah ayaad ku dhufanaysaa kadibna sidaasi ayaad ku isticmaalaysaa. So marka aniga hadda waxaan isticmaalayaa space bar-ka. So waxaa soo dalbanaysaa polygon lesson tool waa kana. Isagaas baa halkan ku dhifanaysaa kadib halkaa ayaad ku wadaysaa. Sida ayaad ugu wadaysaa qaybaha kore ee sawirka ayaad sida ugu wadaysaa. Waa yahay maanta waxaan isla sameynaynaa sawir teesar ah ayaynu arkaynaa qaabka loo diyaariyo. Waa hagaag fadlan sawir yeelo. Midda kalena aan kula dardaarmayo waxa weeyaan haddii aad doonaysid barashada xirfadda graphic design-ka you have to have more practice. Waa inaad yeelataa practice badan, waa inaad la timaadaa. The more you make more practice the more you perfect. Waa kullama aad more practice samaysid shaygaas aad in badan ku celcelisidna waxaad ku noqonaysaa perfect ayaad ku noqonaysaa oo qof xariif ku ayaad noqonaysaa. So sidaas ayaan ugu wareejinaynaa marka. marka sidaa u jiidayo waxaan isticmaalayaa
space barka ayaan hayaa ee keyboardkayga. adiga marka intaad soo bixi lahayd oo aad u imaan lahayd handigan waxaa kaaga ron inaad space ka qabatid. you see okay. so marka sidaa u dhameysid oo xaalku inta uu ku marayo oo arinku meesha uu ku marayo waxaad sameynaysaa control iyo minus ayaad qabanaysaa si aad zoom out u sameysid. so marka aad sidaa yeeshid oo sawirka yani kaa fogaado kadib waxaa sameynaysaa halkan ayaad click ku siinaysaa kadib halkaas ayaad click ku siinaysaa kadib halkaas ayaad click ku siinaysaa kadib halkan ayaad click ku siinaysaa kadib enter ayaad taabanaysaa. so marka aad inta sameysid waxaad u imaanaysaa toolkan lagu magacaabo paint bucket tool. ma ahan midka kore ee gradient tool ma aanan rabo. waxaad taabanaysaa paint bucket tool isaga ayaa ku dhufanaysaa kadib meeshan ayaad imaanaysaa waxaa la yiraahdaa front color iyo background color ayaa la kala yiraahdaa midka kore iyo midka hoose. so anaga midka kore ayaan diiradda saaraynaa. haddii marka sawirada tusaale ahaan teesaraha oo maxaan ku yiraahdaa passportka sidoo kale sawirada jaamacadaha sidoo kale sawirada shaqooyinka marka aad shaqo meel ka dalbanayso ama CV-da waxaa la isticmaalaa mostly background-iga dambe inuu yahay background white ah. laakiin sawirada agoonta oo kale iyo sawirada qaar waxaa lagu leeyahay background dambe waa inuu color blue ama gaduud ama colorkan had yeer hortiin kaga muuqda ee buluug calanka camal iyo meelaha qaar looga baahdaa laakiin mostly inta ugu badan white ayaa loo baahdaa. so marka background-iga dambe hadda colorka rabna waa ku shubi karnaa. halkan fiiri haddaan gaduud ka dhigo kadib okay aan dhaho kadib paint bucket toolki oo kan ah paint bucket toolki ayaa ii dalban halkan haddaan ku dhex daayo fiiri aan click ku siiyo gaduudka ayuu qaadanaya. so marka waxa ku xukumaya mar walba waa fronti color way midka kore. isaga haddaan hadda white ka dhigo oo aan halkan okay dhaho kadibna halkan aan ku dhex daayo waa sida aan rabay marka waa kaasa. marka inta aan sameeyo kadib waxaan leeyahay control D deselect waa select idna ka digaya. so move toolka ayaa tagaynaa kadibna sawirkan waxaan haddana ka jaraynaa qaybta hoose inagoo taaban doona rectangle marquee tool si fiican ila soco kadib qaybta hoose aad saan ugu soo jiidaysaa meelahan markaad keentid waxaad sameynaysaa control X ayaa leedahay waad jaraysaa ka bacdi move toolka aad dalbanaysaa. sawirka markuu sidaan kuu yahay waxaad tagaysaa qaybtan ayaad tagaysaa oo sawirka meesha layerska ayaad imaanaysaa dushiisa ayaad loo mar click ku siinaysaa kadib waxaad dalbanaysaa outer glow ayaad dalbanaysaa kadib halkan fiiri white-ka ayaad ku dhufanaysaa kadibna bahalkan ayaad soo jiidaysaa geeska ku jira waxaad gelinaysaa geeskan black ayaad ka dhigaysaa kore fiiri black ayuu kuu noqonayaa kadibna okay aad leedahay. opacity-ga halkan waa 100 ayaad ka dhigaysaa oo buuxinaysaa. spread-ka waxyaad ayaad ku daraysaa. range-gan gadaal ayaad celinaysaa. size-kana waxyar ayaad ku daraysaa. size-ka waxaad ka dhigaysaa 5 oo kale ka dhig. spread-kana waxaad ka dhigtaa ilaa iyo 15 camal kadib waxaa leedahay okay kadibna control N ayaan leenahay. control N markaan dhahdid anigu hadda waxaan isticmaalayaa Photoshop 2015 document type-ka halkan ayaad furaysaa oo waxaad ka dalbanaysaa photo ayaad ka dalbanaysaa. photo waa warqadda marka aad sawirada soo saarayso warqadda loo isticmaalo waa kadibna waxaa leedahay okay ayaa leedahay. warqaddii ayaa noo soo samaysmaysa kadib sawirkii waan soo drag gareynaynaa oo waxaan keenaynaa halkan. sawirka waxaad aragtaa isaga oo weyn ayuu halkan u yimid kadib waxaan sameynaa control iyo waxaan leenahay minus kadib sawirkan ayaan soo yareynaynaa kor ayaad click ku siinaysaa shift iyo alt isla qabo si wada siman ayuu soo yaraanaya kadibna halkan ii keen kadib waxaan sameynayaa background-igan ayaan waxaan isha ka xirayaa. dabcan waxaa ujeedaa background markaa isha ka xiro sawirka waxaad arkaysaa geesihiisa border madow ayaa noo samaysan. borderka haddaad dootid waa iska yareyn karaysaa kadib sawirka layerka ayaad ku noqonaysaa loo mar click si dushiisa
kadib outer galowga ku dhifo, kadib size-ka iska yaree daartid 2 ka dhig ama 3 ka dhig, kadibna okay dheh. So control minus dheh, sawirka lafirkiisa waa sii yareynaysaa oo halkan waxaan deeqsiin doonaa 6 sawir ayaan deeqsiin doonaa. waa aragteena umaleynaa sawirada testeraha markay soo baxayaan kuwa 6 ku soo baxa, kuwa 4 ku soo baxaan, kuwa 8 ku soo baxaan. hadba adiga waa deeqsiin kartaa, sawirkay kugu xiran tahay, hadba saa u yareysay ku xiran tahay. soo hadda anaga halkan waxaan rabnaa hadda 6 inaan deeqsiino, waa hagaag. marka aan halkaasi oo halka inoo yaalo sawirka markuu halka inoo yaalo waxaan sameynaynaa control J ayaan leenahay oo micnaheedu ah inoo koobiye. mujida sawir ayaa kasoo dhex baxay, haddana control J ayaan leenahay, mid kale ayaa kan kasii dhex bixinaynaa. you see. soo marka saddexdooda ayaan waxaan sameynayaa waa isla dooran doonaa, saasaan iskula dooranayaa, kadibna halkan ayaan ku aadinayaa dhexda. halkan layerska geeska imaaw, waxaa leedahay right click markay saddex saa kugu dalbayihiin merge layers leh. waxaad aragtaa dhammaantood in hal layer ay noqdeen. haddana waxaan sameynayaa control J aan leeyahay, saddex kale ayaan kasoo dhex bixinayaa. you see. halkaasa. soo marka meelahan aan sidaan u baneeyay waa meelihii hadhow dambe maqaska aad ku jari lahayd wey. haddana waxaan sameynayaa oo soo wada dooranaya, saas ayaan waalid gareynayaa, kadibna dhexda ayaan ku aadinayaa, kadibna sawirka waan yara weyneynayaa, saa u weyneynayaa, kadibna dhexda ayaan ku aadinayaa. see. sidaa baan dhexda uga aadinayaa. soo hadda sawirkii waa uu inoo diyaarsan yahay, sidaas ayuu inoogu diyaarsan yahay. laakiin sawirka qaabka wajigan loo qurxiyo, loo cadeeyo, qaabka finanka looga bi'iyo, maxaan ku yiraahdaa waxyaabo badan sida iftiinka loogu furo, waxyaabahaas oo dhan hadda kuma aynaan baranin muuqaalkan. haddii aad u baahan tihiin muuqaal inaan kasoo sameeyana qaybta commentiga igu soo dhaafa fariintaas, waan kasoo sameyn doonaa insha Allah. soo marka hadda muuqaalkeena waxaan ku baranaynay qaabka testeraha loo jarjaro oo loo diyaariyo ama loo habeeyo, background dambena white looga dhigo. soo marka haddii qaabka finanka looga bi'iyo sida white-ka loogu furo, sawirka hadduu qofka mugdi ku jiro wejigiisa sida iftiin looga dhigo, waxyaabahaas oo dhan haddaa u baahan tihiin iyana muuqaal dambe ayaan kasoo sameyn doonaa. soo marka fariin igu dhaafa qaybta commentiga insha Allah. marka sawirkan hadda waan save gareyn doonaa. si aan u save gareyno waxaan leenahay control iyo shift iyo S ayaan qabanaynaa. control shift S markaa dhahdid wuxuu keenayaa qaybtan. halkan kore waa file name-ka aad u baxsan lahayd, waxaan ku qornaynaa testero tijaabo. halkanna waa save type as type, yani nooce u save gareysanayna. waxaan ku save gareyn doonaa halkan ayaan furaynaa, waxaan ku save gareynaynaa JPG ama JPEG. soo marka halkeen dhigaynaa wey, waxaan dhigaynaa desktop-ka dhigi kartaa ay folder. marka haddana desktop-ka noo dalban, haddii oo this PC uu ka saarayaan wuxuu galayaa meelahan ayuu imaan doonaa, laakiin hadda anaga waxaan dalbanaynaa desktop, kadibna waxaan leenahay save. markaan save dhahno halkan quality-ga hadduu uu ka yar yahay iska jir, sawirkaaga dhoodi shucaac ayuu kusoo baxayaa. soo marka waxaad ka dhigtaa maximum gay oo 12 ah, progressive-kana waxaad ka dhigi kartaa 5 iyo 4 iyo 3. hadda anaga 3 aan isaga dhaafaynaa, kadibna waxaan leenahay okay, kadib waa uu inoo save gareeyay. desktop-ka ayaan ka fiirin doonaa magacaan ku qornay muxuu ahaa, waa kana waa tester tijaabo ah, kadibna double click ayaan ku siin doonaa dushiisa si uu inoogu soo kaco oo aynu ku aragno sawirkeena qaabka uu noqonayo. soo marka waa kaasa, waad aragtaa sawirkii waa kana, waa isla aragnaa Soomaan. marka qaabkaasi ayaa loo diyaariyaa insha Allah. inta aynu muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.